saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii milatariga ee Mengistu Hailamaram. kadib markii la dhaariyey ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Itoobiya waxa uu ku martiqaaday Abiy Ahmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abiy Ahmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan wadamada ay dariska yihiin Itoobiya. ugu horreyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ከዲሞክራሲ ባህላችን አለመዳበር ጋር ተያይዞ በታዩብን እጥረቶች በዜጎቻችን ሕይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba. waxaana ay ka dhasheen ayuu yidhi caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeennii dimuqraadiyadda. waxay ahayd buu yidhi inaan ka hortagno, waana ka hortegi karnay. waxaan raaligelin siinayaa ayuu yidhi dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta nafhurka sameeyey, dhallinyarada u dhimata iyagoo doonaya isbeddel, iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abiy Ahmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan. የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል በጽናት ይሰራል። በተመሳሳይ ዜጎች ሀሳባቸውን ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን waxa uu yidhi dowladdu waxay si xoogan uga shaqaynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. waa wax isburinaya ayuu yidhi inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adiga oo ku xadgudbaya tan qofka kale. dowladdu waa inay ixtiraamtaa ayuu yidhi sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyaddooda u gutaan si sharci ah. dulqaadka ayaa sidoo kale ah ayuu yidhi mas-uuliyadda dowladda. markii dowladdu ay ku guuldarraysata ayuu yidhi inay dulqaad samayso waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed waxaa kale oo uu ka hadlay xiriirka Itoobiya iyo wadamada deriska, waxaana uu si gaara usoo qaatay waddanka Eritrea. hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን። waxaan garab taaganahay ayuu yidhi walaalaheenna Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan deriskeenna kuwa ah, markii lagu jiro xilli adag iyo markii wanaag jiro intaba. waxaan si weyn u doonayaa ayuu yidhi in khilaafka muddada dheer soo jiray ee Eritrea inagala dhexeeya uu dhammaado. waxaan samayn doonaa ayuu yidhi wixii dhinacayaga ku aadan arrintaasi. waxaan doonayaa ayuu yidhi inaan caddeeyo inaan diyaar u nahay inaan khilaafka ku xallino si nabad ah, annagoo eegayna faa'iidada labada qof ee wada dhashay iyo weliba faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin inay dhiig wadaagaan. waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanaya ayuu yidhi inaan ugu baaqo dowladda Eritrea inay mowqifkaasi la mid ah iyaduna qaadato. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya islamarkaana uu hambaliyeeyey. waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada waddan, maalgashiga iyo amniga gobolka. Abiy Ahmed waa 42 jir, waxaana uu hore u soo noqday korneyl ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda sayniska iyo teknolojiyadda. waxaana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan horey u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay. waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee jagadan qabta dalka Itoobiya. waxaana gobolkaasi tan iyo sanadkii 2015 waa gobolka Oromada ee ka soo jiray qalalaase ka dhashay cabashooyin ay samaynayeen oo asal ahaanna ay kaga caroodeen tallaabooyin ku saabsan maamulka degaamaynta ee ay dowladda dhexe waday.